korintuska koowaad cutubka 15 walaalayaalow waxaan idin ogeysiinayaa injiilka aan idinku wacdiyey oo aad idinkuna aqbasheen oo aad ku taagan tihiin oo aadna ku badbaaddeen haddaad xejisaan hadalkii aan idinku wacdiyey haddaynan macnola'aan rumaysan waayo markii ugu horraysay waxaan idiin dhiibay waxaan aniguba helay oo waxa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorniinku leeyahay markaasuu kayfas u muuqday markii dambena 12 markaasuu wuxuu mar keliya u muuqday kuwo ka badan 500 oo walaalo ah kuwo weli intooda badnayd ay hadda joogto laakiin qaar baa dhintay goortaasuu yacquub u muuqday markaas rasuullada oo dhan markii ugu dambaysana aniga oo dhicis oo kale ah ayuu ii muuqday waayo anigu waxaan ahay kan rasuullada ugu liita oo aan istaahilin in loogu yeedho rasuul waayo kiniisadda ilaah baan silcin jiray laakiin ilaah nimcadiisa ayaan ku ahay waxaan ahayba oo nimcadiisii laysiiyena wax aan waxtar lahayn ma ay noqon laakiin anigu waxaan u hawshooday si ka badan dhammaantood anigase ma ah laakiin waa nimcada ilaah ee ila jirtay haddaba ha ahaato aniga ama iyaga sidaasaannu u wacdinaa oo idinna u rumaysateen haddii dadka lagu wacdiyey in masiixa kuwii dhintay laga sara kiciyey sidee baa qaarkiin u yidhaahdaan sara kicidda kuwii dhintay ma jirto haddaanay jirin sara kicidda kuwii dhintay masiixana lama sara kicin oo haddaan masiixa la sara kicin markaas wacdigayagu waa khasaare rumaysadkuunnuna waa khasaare waxaa la arkayaa inaannu markhaatiyaal beena ka nahay xagga ilaah waayo waxaannu u marag fognay inuu masiixa sara kiciyey kan aannu sara kicin haddii aan kuwii dhintay la sara kicin haddii aan kuwii dhintay la sara kicin masiixana lama sara kicin oo haddii aan masiixa la sara kicin rumaysadkiinnu waa khasaare oo weli dembiyadiinna ayaad ku jirtaan oo weliba kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintayna way halligmeen haddaynu noloshan oo keliya masiix ku rajayn lahayn waxaynu ahaan lahayn kuwa u liita dadka loo naxo oo dhan laakiinse haatan masiixa ayaa kuwii dhintay laga sara kiciyey isagoo ah midhaha ugu horreeya ee kuwa dhintay dhimashadu nin bay ku timid saas aawadeed sara kicidda kuwii dhintana nin bay ku timid siday dhammaan aadan ugu wada dhintaan sidaas oo kalea dhammaan masiixa loogu wada noolayn doonaa laakiin mid kastaa markiisa masiixa midhaha ugu horreeya markaas kuwa masiixana wakhtiga imaatinkiisa markaasaa dhammaadku iman doonaa markuu isagu boqortooyada u dhiibi doono ilaah aabbaha markuu baabi'iyo madax walba iyo amar walba iyo xoog walba dabadeed waayo waa inuu wax xukumo ilaa uu cadaawayaashiisa oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo oo cadaawaha ugu dambeeya ee la baabi'in doonaa waa dhimasho waayo wax walba cagihiisa hoostooduu geliyey laakiin markuu yidhaahdo wax walba waa la hoosgeliyey way caddahay in laga reebay kan wax walba hoostiisa geliyey markii wax walba la hoosgeliyo isaga markaas ayaa wiilka quudhiisana la hoosgelin doonaa kan wax walba hoosgeliyey isaga inuu ilaa wax walba u ahaado dhammaan haddii kale maxay samayn doonaan kuwa loo baabtiisay kuwii dhintay haddii aan kuwii dhintay la sara kicinba maxaa haddana loogu baabtiisaa iyaga maxaynu saacad walba halis ugu jirnaa fahankaan idiin qabo xagga rabbigeenna ciise masiix ayaan ku caddaynayaa walaalayaalow inaan maalin walba dhinto haddii aan sida dadka dugaagugula dagaalamay efesos maxay ii taraysaa haddii aan kuwii dhintay la sara kicin aynu wax cunno oo cabno waayo berrito waynu dhiman doonnaaye yaan laydin khiyaanin kuwa xun la socodkoodu waa halleeyaa asluubta wanaagsan suquman u toosa oo hana dembaabina waayo qaar baan ilaahba aqoonin waxaan taas u leeyahay inaan idinka xishoosiiyo laakiin mid baa odhan doona sidee baa kuwii dhintay loo sara kiciyaa oo jidh caynkee ah bay ku yimaadaan doqoyow waxaad adigu beertid ma noolaado haddaannu dhiman oo waxaad beertidba ma beerteed jidhka noqonaya
laakiin iniintoo qudha haato iniin sarreena ama iniin cayn kalea laakiin ilaah wuxuu iyada siiyaa jidh siduu u doonayey iniin kastana jidhkeeda hilib oo dhammu isku hilib ma aha laakiin waxaa jira hilibka dadka iyo hilibka kaloo dugaagga iyo hilibka kaloo shimbiraha iyo hilibka kaloo kalluunka oo waxaa jira jidharka samada iyo jidharka dhulka laakiin ammaanta kuwa samadu waa mid oo tan kuwa dhulkuna waa mid kale waxaa jirta ammaanta qorraxda iyo ammaanta kaloo dayaxa iyo ammaanta kaloo xiddigaha waayo xidiguba xiddigta kale way ka ammaan duwan tahay sarakicidda kuwii dhintayna waa sidaas oo kale waxaa lagu beeraa qurun waxaana lagu sara kiciyaa qurunla'aan waxaa lagu beeraa maamuusla'aan waxaana lagu sara kiciyaa ammaan waxaa lagu beeraa itaaldarro waxaa lagu sara kiciyaa xoog waxaa la beeraa jidh naf leh waxaana la sara kiciyaa jidh ruux leh hadduu jiro jidh naf leh jidh ruux lehina waa jira haddaba waxaa qoran aadan oo ahaa ninkii ugu horreeyey wuxuu noqday naf nool aadankii ugu dambeeyeyse wuxuu noqday ruuxa nooleeya taase ahaatee kan ruuxa lihi ma aha kii ugu horreeyey laakiin kan nafta le markaasna kan ruuxa le ninkii ugu horreeyey waa kan dhulka oo cammuuda ninkii labaadna waa kan jannada sida kan cammuudda ah kuwa cammuudahina waa sidaas oo kale oo sida kan jannada kuwa jannaduna waa sidaas oo kale oo sidaynu ugu egnahay kan cammuudda sidaas oo kale ayaynu ugu ekaan doonnaa kan jannada waxaan leeyahay walaalayaalow jidhka iyo dhiiggu ma dhaxli karaan boqortooyada ilaa qurunkuna ma dhaxli karo qurunla'aanta eega waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon dhammaanteen ma wada dhiman doonno laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa dhaqsiba intaan il laysku qaban markii buunka ugu dambeeya la yeedhiyo waayo buunku waa dhawaaqi doonaa oo kuwii dhintayna qurunla'aan baa la sara kicin doonaa waana layna beddeli doonaa waayo kan qudhmayaa waa inuu gashado qurunla'aanta oo kan dhimanayaana waa inuu gashado dhimashola'aanta markii kan qudhmayaa oo gashado qurunla'aanta oo kan dhimanayaana uu gashado dhimashola'aanta markaas hadalka qorani wuu noqon doonaa dhimashadii waxaa liqday libtii dhimashooy meeday libtaadii dhimashooy meeday micidaadii micida dhimashadu waa dembiga oo xoogga dembiguna waa sharciga laakiin ilaah baa mahadle kan libta inagu siiya rabbigeenna ciise masiix sidaa daraaddeed walaalahaygii aan jeclaayow noqda kuwo adag oo aan dhaqaaqayn oo had iyo goor baa shuqulka rabbiga si aada u sameeya idinkoo og hawshiinnu inayan khasaare ahayn xagga rabbiga